salaadu cibaadada kale waxay uga duwan tahay shan arrimood. Waxay uga duwan tahay xajka markii la faray ama soonka la faray ama ashyaada kale islaamka ku salaysan la faray nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam dhulku joogay. laakiin markii nabiga salaada la farayay samada loo sii qaaday. waxay tusaale u tahay salaadu inay tahay asaaska islaamka ama udub dhaxaadka islaamku ku taagan yahay. salaadu waxaan ognahay inay tahay shanta tiir islaamku ku taagan yahay mid kamid ah arkaan al-khamsa shahaadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah. talabaad waa maxay iqaam as-salah. markaad xarada soo gashooda shahaadato waxa u horeeya laga rabaa waa salaad weey. salaadu waxa weeye awwal ma yuhasib al-abd yawm al-qiyamah. qiyaamada marka la tago waxa u horeeya ilaahay kala xisaabtamay waa salaad. salaadaadii hadday fiicnaato inta kale waa laguugu dari. salaadaadii hadday xumaatana ilaahay agtiisa khayr dambe ka rajayn maysid. salaadu waa rukniga kaliya ama waa shayga kaliya sharciga kamidka ilaahay ku tilmaamay inay iyaduba iimaankiiba tahay iyaduba inay islaamkii tahay. markuu nabi maxamed bayt al-maqdis in badan u tukanayay ayaa waxa la faray inuu kacbada u jeedsado. markaas waxay yiraahdeen gaaladii iyo yahuudii iyo nasaaradii yaa waxay yiraahdeen idinkana kuwii iyagoo u tukanaya bayt al-maqdis dhintay soo gaala ma ahayno naarta nala gali maayaan. ilaahay baa ka jawaabay sayaqulu as-sufahaa'u min an-nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal-maghrib. aayaadka ilaahay markuu sii waday markuu ilaahay uga jawaabay yahuudii tiri idinkuna kuwii kacbada aanu tukanin ee horteed dhintay soo gaala ma ahan ayaa ilaahay wuxuu leeyahay waxaad tiraahdaa oo u sheegtaa nabigi ilaahayow ma kaana allah ilaaha inaanu ahayn oo waligi noqon doonin liyudiica iimaanakum iimaankiina kii dayaca ama salawaadkiinii dayaca qiblada horteeda tukateen. waxa weeye marka salaadatan aan tukanaynay horta nabi maxamed isagoo samada la geeyay oo asraarta koonka wax badan laga tusay oo janniya naarba la tusay oo dad naar la geeyay la tusay oo kuwa janno la geeyay la tusay oo isaga la sabir siiyay oo dhibaatadii haysatay aamul xizni laga sabir siiyo samada jooga horta lagu soo faradiyaa. salaadaad sunna bi haddi dhaatiha wa iimaan baynu niri waa shayga kaliya ilaahay iimaan ku tilmaamay. waa shayga kaliya oo lagu hormarinayo xisaabta aakhira qiyaamada marka la tago. waa tu nabigu dardaarmay markay naftu ka baxaysay. nabi maxamed markay naftu ka baxaysay ma oran xoolo shaqaysta iyo wax qabsada toona wuxuu yiri as-salah wa ma malakat aymanukum bay naftu kaga baxay. aanu salaad baan idinkaga tagay buu nabigu kaleey salaatu wasalaam. aanu salaad baan idinkaga tagay. salaada ninkii dayacay islaamnimadiisii buu dayacay. salaada ninkii toosiyana diintiisii buu toosiyay. salaadu waa xariga ka dhaxeeya ilaahay iyo adoonka muslimka. salaadu marka faradkaas waajibkaas qiimiga badan weey. nabi maxamed wuxuu ku miisaaliyay ka warrama midkiin hadduu webi biyo macaani marayo nadiifihi gurigiisa hortiisa maalintii hadduu 5 jeer ku qabaysta ka warrama ku maydho 5 jeer buu maydhay. hal yabqa min daranihi shay uskagiisa wax ma ka soo harayaan ayuu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam. waxay yiraahdeen maya wax uskagii ku hari mahayo 5 jeer ninka maalintii maydha uska ku soo hari mahay. nabigu markaas wuxuu yiri fadhalikum mithla salawati al-khamsa. taa waxa lamida 5 salaadood ee muslimku tukado. salaad walba iyo salaada kale inta u dhaxaysa mukaffiratun lima baynahunna bu xadiis kale nabigu ku leeyahay kaleey salaatu wasalaam. salaada hore tukatay iyo ta dambe tukanayso dambiyadii yar yaraayn kabaa'irta ahayn ee aad ku dhacday ya ilaahay kaaga maydhaya. waxaad noqonaysaa marka qof qalbigiisu nadiif yahay oo aqligiisa iyo maskaxdiisu nadiif yihiin oo jirkiisu nadiif yahay oo waxa weeye macquul ay u tahay ilaahay intii sartaaga inuu baryo marka. salaad horta qiimahaas ay leedahay. salaada sababteeda ilaahay cimriga iyo arsaaqda iyo maalka iyo awlaada iyo adduunkaaga uu kugu barakaynayo.